aad ugu faraxsanahay halkan inay fadhiyaan dhalinyaro aad u badan oo runtii aan aad ugu sii diirsaday inay ka buuxaan gabdho Soomaaliyeed oo aad u badan. madaxweyne adiga iyo marwadaada waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta leh iyo karaamada leh adigoo hogaaminaya dhammaan madaxda iyo shacabka reer Puntland oo aad u soo dhaweyseen aniga iyo waftigayga waa ku mahadsantihiin guriga iyo wajiga furan iyo Puntland aad albaabadeeda noo furteen. madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan golaha wasiirada iyo dhammaan madaxda kale oo iyaguna na soo dhaweeyay waa u mahadcelinayaa. waxaa kaloo u mahadcelinayaa dadkii Soomaaliyeed ee shalay isu soo baxay laga soo bilaabo aeroboortka ilaa aan nimid magaalada taagnaa jidadka iyagoo aan aniga ii taagnayn ama madaxweyne Cabdiweli u taagnayn laakiin u taagnaa rabitaanka ay u qabaan dowladnimo Soomaaliyeed. waa ku mahadsantihiin. waxaan mahad gaar u celinayaa dhammaan ardayda halkan isugu timid iyo ganacsatada culummada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si ay aniga iyo wafdigayga noo soo dhaweeyaan. laakiin waxaan mahad gaar ah u celinayaa jamacada Bariga Afriga oo iyadu noo fidisay gogashan. waxaan dareemay in magaalada Garoowe 20 sano oo dowlad goboleedka ay ahayd ay ku qaan gaartay inay fahamto wax may aan islaayahay weli dad badan oo Soomaaliyeed maanay fahmin. waayo soo dhaweyntii shalayto sidaan sheegay waxaa ka muuqday jacayl dowladnimo, waxaa ka muuqday bisayl iyo dulqaad, waxaa ka muuqday runtii ma aha inaan idinku ammaanayo laakiin haddii aan qalbigayga ka hadlo soo dhaweyntii shalay waxaa ka muuqatay dadnimo ku dayasho mudan. waxaan aad ugu faraxsanahay marka idinkoo haysta xasilooni haddana inaad haysataan jaamacado oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay jaamacada dhigato ama Muqdisho ha ahaato ama Garoowe ha ahaato ama Boosaaso ha ahaato ama Kismaayo ha ahaato. su-aasha aan rabo marka maanta inaan isweydiino waxay tahay haddii 75% aan nahay dhalinyaro haddii aad jaamacada dhigataan waxaan rabnaa inaan isbarbar dhigno sida mustaqbalku u ekaanayo haddii aan u dhaqanno dowladnimo iyo sida uu noqonayo haddii aan ka faa'iideysan weyno fursadda. marka hore 20 ama 30 sano oo soo socota kadib haddii Ilaahay idin gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed iyo dowladoodu waxa ay leedahay fursad aanay lahayn dalal badan oo dunida ka mid ah. sababtoo ah maadaama dhalinyaradeennu ay yihiin hadda 20 jiro waxay leeyihiin xoog ay ku shaqeeyaan 20 30 40 sano soo socota. marka wadamada dariskeena ama wadamada kale oo dunida oo ay ugu horeeyaan Yurub iyo wadamada horumaray ay shaqaalahooda iyo maskaxdooda iyo xoogoodu uu daciifi doono annagu waxaan leenahay xoog sababtoo ah dadkeenu waa dadkan hor fadhiya. su-aashu waxay tahay marka haddii dhalinyaradani aanay helin fursad, haddii aan waxbarasho loo aasaasin, haddii aan qabyaaladda laga fogeyn, haddii aan dowladnimo iyo midnimo lagu soo dabaalin 30 iyo 40 sano soo socota Soomaali sidee bay noqonaysaa? waa su'aal ay muhiim tahay inaad isweydiisaan qof walbo dhalinyaro oo dhageysanaya iyo qof walbo halkan fadhiya inaanu ka fikirin maanta iyo berri laakiin aan ku xisaabtano 30 sano 40 sano soo socota. sidaas daraadeed waxaa muhiim ah inaan ka fikirno maadaama aan leenahay fursad weyn
fursaddaasi ay noqon karto tii aan deriska iyo dunida kula tartami lahayn ama uga hormari lahayn inaanan fursaddaas khasaaro u rogin idinka marka haddii aad tihiin dhallinyarada iyo madaxda iyo shacabka reer puntland waxaa idin saaran mas-uuliyad ka weyn kuwa kale maadaama meelo badan oo waddanka ka mida aanay helin fursadda xasilooni oo aad hesheen markii madaxweynuhu maanta i waday uu isoo tusay mashruuca dowladnimada puntland oo lagu dhisay isku tasho waxaa muuqatay in horumar weyn aad samayseen wasaaradihiinna iyo jidadkii aad ku dhisateen maskax iyo xoolo ay leeyihiin shacabka reer puntland marka haddii aad warshad leedahay warshaddu waxay u baahan tahay qalab cayriin oo aad geliso si aad u soo saarto waxa aad soo saari lahayd marka aad soo saarto waxaad u baahan tahay qalabkaas inaad suuqa geyso si aad u iibiso markaad suuqa geysana waxaad u baahan tahay inay jirto cid leh awood ay kaaga iibsato si aad mid kale u soo saarto qalabkaad soo saaraysidna waa inuu yahay mid la tartami kara kan dunida lagu sameeyo waxbarashadu waa intaas waa noocaas oo kale macnaheedu waxay tahay waa inaan isku daboolnaa aasaaskaas ku dhowaad 30 sano ayaan markaa haddii aan nahay dadka soomaaliyeed waxaan u muuqannay inaan dunida ka harnay maanta waxaan hor taalla fursad aan rabo dhallinyarada halkan jooga iyagu inay hormuud ka noqdaan waxaan rabaa inaad qaadataan mas-uuliyaddiinna sababtoo ah halkan aad joogtaan waxaa ka soo baxday dhallinyaro yaryar oo ahaa kuwii ka qayb qaatay inay dhaliyaan xornimada waddanka kuwa ka qayb qaatay inay keenaan dowladnimadii naga duntay idinkaa ka dhaqaalo badan ka aqoon badan ka fursad badan waalidkiin ka dhaqaalo badan yahay sideedaad rabtaan taariikhdu inay idin xusuusato marka loo barbar dhigo kuwii halkan ka yimid oo iyagu dalka xoreeyey waxaan u baahannahay siyaasad hufan oo kala saarta awoodda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka siyaasad hufan oo ku jira awood qaybsi iyo khayraad qaybsi siyaasad hufan oo matasha shacabka soomaaliyeed sanadkii iyo xoogaagii ay jirtay xukuumadda hadda dhisan waxaan idinkugu bishaaraynayaa marka ugu horraysa inay tahay oo madaxweynuhunu ka markhaati kacayo shirkii hadda la isugu tegay brussels in adduunyadoo dhani ay isku raacday soomaaliya waxay leedahay fursaddii ugu weyneed inay yidhaahdeen waxaa la soo gaaray wakhtigii la aamini lahaa inay yidhaahdeen waxaa la soo gaaray wakhtigii dhaqaale si toos ah loo siin lahaa inay yidhaahdeen waxay ku dhacday jidkii deynta looga dhaafi lahaa haddii aad fiiriso marka shaqada waddanka ka dhacday sanadkii lasoo dhaafay meel walba oo aad ka fiiriso inkastoo ay culus tahay in weli qof walba uu dareemo waxaan isweydiinaynaa ma ku socdaa dariiqii loogu talagalay su-aalaha adigu jawaabi karta marka waa maxay kow muxuu la eg yahay dhaqaalaha waddanka yaalla markii la barbar dhigo intaanan iman ka hor su-aashii waxay tahay uu ka badan yahay labo maxay la eg tahay lacagta caddaanka bangiyada dalka taalla markii la barbar dhigay intaanan waddanka iman su-aashii jawaabteedu waxay tahay way ka badan tahay saddex 70 milyan oo dollar oo gudaha ayaa lagu lahaa dowladda soomaaliya markaan annagu nimid su-aashii waxay tahay meeqa ayaan ku darnay intaan annagu joognay jawaabteedu waxay tahay shilin kumaan dirin meeqa qofood ayaa mushaarkeeda weysay inta aan joognay oo dowladdu u shaqaynaysay su-aashii waxay tahay qofna maanay weyn dhaqaalaha soo gala dowladda inta hore ma ka badan yahay mise wuu ka yar yahay haa wuu ka badan yahay sicir bararka waddanka sida hore ma ka wanaagsan yahay haa iyadoo ay world bankiga iyo IMF qorayaan awoodda wax iibsashada shacabka soomaaliyeed inta hore ma ka wanaagsan tahay haa way ka wanaagsan tahay
faqriga Soomaalinimada number ahaan 5 ilaa 10% hoos ma u dhacay sida aanu nimid haaw u dhacay GDP-ga Soomaaliya maalinta nimid ilaa hadda inta hore ma ka fiican yahay haaw ka fiican yahay qofkaan aaminin la xiriir World Bank-ga iyo IMF-ta ama wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya annagu Soomaali haddii aan nahay waxaan rabnaa inaan ku dhaqno dadka Soomaaliyeed aqligii qarniga 20aad iyadoo la joogo qarniga 21aad ha aqbalinina taas idinka dhalinyarada ee wadanka haddii aanan adduunyada la tartimin dhibaato dhacaysa waa nasiib darro marka in maantay iyadoo dhibkaas uu nahaysto in adduunyada ay isku jirto tartankaas weli ay hor taagan yihiin dhibaatooyin qabiil kuwa kala qoqobnaan waana wax ka baran ku dhawaad 30 sano oo la soo dhaafay waxa koob ka ah hadda aafadan cusub ee dagaalka ah ee tukaraq ee hor taala waa in dagaalkaas lagu bedelaa xasilooni waa in lagu bedelaa horumar waa in lagu bedelaa midnimo waa inaan niraahdaa dagaalna dooni mayno midnimada ummadda Soomaaliyeedna waa muqaddas dadka Soomaaliyeed meel kala aadi maayaan hadday wax kala tirsanayaanna waa inay isu yimaadaan waa haddii aad dhalinyaro tahay haween tahay culummo tahay qof walba oo Soomaaliyeed waa inuu aqbalaa dib waxaa noogu filan 30 hore sano la soo dhaafay ku dhawaad waxaan doonaynaa marka dhalinyaradu inay iyagu noqdaan tabliiq cusub ee nabadda iyo dowladnimada soo ma jirin tabliiq kuwa weynaa tabliiqooda waa la dhageysan waaye waa in idinku noqotaan tabliiq cusub ee nabadda iyo dowladnimada waa in dhalinyaradu ay fahmaan sida kaliya oo dalkana dibka uga bixi karo inuu yahay inay iyagu noqdaan indhaha uu dalku wax ku arko sida kaliya oo dibka uga bixi karno waxay tahay idinku inaad noqotaan gacmaha uu dalku wax ku qabto sida kaliya aan dibka uga bixi karno wuxuu yahay idinku inaad noqotaan dhigaha uu dalku wax ku maqlo sida kaliya oo dibka looga bixi karo mustaqbal u dhigma dawladaha dariska iyo dunida inteeda kalena waxay tahay idinku inaad noqotaan xuduudda dalkani uu wax ku fuliyo